Direct from Washington, the voice of America, VOA. halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 mitir baan iyo waliba afimiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan boggeega internetka ee voasomali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa sabti bishan Decemberna waa 23 sanadka 2017 idaacadeena galabnimo waxaa si wada jiro halkan idinkaga soo jeedin doona anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doonto idaacadeena galabnimo aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah Soomaaliya oo sheegtay inay dib ula soo wareegayso 2 toddobaad gudahood maamulka hawada ee Soomaaliya. markii waxaan bilaabnay fasiiwada qalabkii meeshii ugu dambeeyay hadda maraya 28 bisha waxaan ugu bishaareynaa ummadda Soomaaliyeed dawladda raalmada inaan qaban doono xafladii lagu dhameystirayay qalabka lagu maamulayo hawada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho looga maamulayo. waxaad sidoo kale dhageysan doontaan xiisad ka taagan magaalada xuduudda ku taala ee Beled Xaawo halkaasi oo dad shacab iyo ciidamada Kenya isku dhacay u dhaxmaray. dhulka dhul yar ma ahan hadda ay rabtay inay Kenya qaadata waa bartinkii buuraha weeye kala barihii buuraha weeye dad markii laga soo jiro labada masaajid lagu soo aadiya dhankan buurta laga rida xuduudaasi marka waa kala barihii buuraha waa xagga maraya marka cid yeelaysana ma jirto waa lagu dhamaan waana lagu diriray Kenya waxaan leenahay xadgudubka ay ku wada dawladda Soomaaliya ha ka joojiso. waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. hay'adda FBI ee dalka Mareykanka ayaa xidhay nin Mareykan ah oo ku eedeysan inuu maleegayo weerar argagixiso oo laga fuliyo goob dalxiis oo caan ah oo ku taalla magaalada San Francisco ee dalka Mareykanka maalinta ciida Christmaska. hay'addan FBI ayaa Jimcihii shalay shaacisay inay toddobaadkan horaantiisii California ka soo xidheen Everett Aaron Jameson oo ah 26 jir. ninkan ayaa u sheegay xubin ka tirsan hay'adda FBI daasay Chase qariyay inuu qorsheeyay inuu beegsado goob si weyn loogu dalxiiso isla markaana uu la beegsado qaraxa nooca meesha fog laga hago kadibna uu dadka toogasho ku bilaabo. golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa si wada jira isugu raacay Jimcihii shalay ahayd inay ku soo rogaan cunaqabateyntii labaad ee ka dhana Kuuriyada Waqooyi iyagoo bartilmaameedsanaya xilligan goobaha muhiimka u ah barnaamijka hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi horumarinteeda. sidii xilligii aan soo dhaafnayba waxa aan sii wadi doonaa inaan la tartano rejiimka Kim ee doortay inuu sameeyo ficilada gardarrada ku ah cunaqabateenada qaramada midoobay ee saarta ayay tiri Nikki Haley oo ah safiirka Mareykanka u joogta qaramada midoobay. qaraarkan cusub ee golaha amniga ee qaramada midoobay ee cunaqabateynta ka dhanta ah Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay imaanaysaa iyada oo kulamo sidan oo kale oo hore qaramada midoobay uga fariisteen muddo 3 jeer ay ku soo saareen sanadkan horaantiisii Pyongyang qaraar ka dhana. Mareykanka ayaa gudbinaya dalka Ukraine hubka wax gumaada si uu gacan uga siiyo dagaalka uu dalkaasi uu kula jiro kooxda go'doosadka ah ee u baritaara Ruushku ee ka dagaalama bariga dalkaasi. war Jimcihii ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in go'aankan uu la xiriiriyo sidii dalka Ukraine loogu ilaalin lahaa dhismaha hannaankooda difaaca isla markaana ay iskaga difaacaan amaba ay u difaacaan sharafta iyo weliba ciidooda. war laga baahiyay telefishinka ABC ka hor intii aan la shaacinin warkan ayaa lagu sheegay in wadarta hannaankan difaaca ay gaarayso 47 milyan oo dollar.
wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaad joogtaanba waa idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a idinka imanaysa washington. wasiirka duulista iyo hawada soomaaliya maxamed cabdilaahi salaad cumar ayaa sheegay inay wax ka yar 2 toddobaad ka dhimantay in hawada dowladda soomaaliya ay si buuxda u maamusho hawada soomaaliya kadib dhowr iyo 20 sano hawada soomaaliya ay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku maamuleysay hay'adda ICAO ee qaramada midoobay hawada u qaabilsan. wasiirka oo socdaal ku maraya waqooyiga Amerika ayaa sheegay in haddii Soomaaliya ay dib u hanato hawadeeda laga maamuli doono airportka magaalada Muqdisho halkaas oo qalabaynteedii la soo sameeyay ama la dhameeyay. Saare Cabdi Axmed oo studio ay ugu helisay ayaa wasiirka duulista iyo hawada Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Cumar arintaasi ka wareysatay. bishii May iyo bishii September labadaba waxaan tagay Montreal oo ah head office-ka hay'adda la yiraahdo ICAO oo u qaabilsan duulista rayidka adduunka oo UN-ka hoos tagta isiyadii ugu dambeeyayna meeshaas ay September 12 soo saxiixanay oo lagu soo wareejinayay Soomaaliya hawadeeda in laga maamulo wadanka gudihiisa. marka alxamdulillah arrintaasi way iska soo dhamaatay wixii procedure ahaan isla markii waxaan bilaabnay rakibaadda qalabkii meeshii ugu dambeeyay hadda maraya 28 bisha waxaan ugu bishaareynaa ummadda Soomaaliyeed dawladda ka raali noqdo inaan qaban doono xafladii lagu dhameystirayay qalabka lagu maamulayo hawada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho looga maamulayo. xaflad weyn ayaan sameyn doonaa insha Allah taala oo lagu daahfurayo qalabkii ku rakiban hawada diyaaradaha Soomaaliya hawada dusheeda mara waxaa lagala hadli doonaa magaalada Muqdisho ilaahay ka raali noqdo. marka sidii aan ballan qaadnay sanadka inta uusan dhamaanin 28 bisha hawada qalabka lagu maamuli lahaa uu dhameystirmaya shaqadana way bilaabmaysaa haddii ilaahay ka raali noqdo. ilaa iyo bisha January dhexdeedana waxaan sameyn doonaa waxay isla shaqeyn doonaa mashruuca Nairobi labadaba laga wada shaqeyn doonaa. February dhexdeeda waxaan bilaabi doonaa insha Allah qalabkii naga yaalay Nairobi la soo xiro haddii ilaahay ka raali noqdo. xafiiska Nairobi ilaa iyo bisha March dhamaadkeeda waxaan rajeynaynaa in complete la xiro qalabkii yaalay la soo furfuro haddii ilaahay ka raali noqdo iyagoo noo isticmaali doona meelo kale oo Soomaaliya kamid ah. marka alxamdulillah wayna arrintaasi waa arrin soo dhamaatay. waayahay dhinaca amniga iyo tashiilaadka iyo goobta wax laga dhigayo shaqaalaha xirfadooda iyo waxaas oo dhan ma laga sii fakiray mase waxay yihiin un wax gudaha wadanka lagu sameynayo laakiin wali ay gacanta kula jiraan hay'adda ICAO oo qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca duulista muddada soo haysay maamulista hawada Soomaaliya. haddii aad fiiriso wadamada kale ee dariskeena iyo wadamada adduunka dhan shaqaalaha ka shaqeeya waxaa ku jira dad ajnabi ah dad ajnabi ah oo haddaba ICAO u shaqeeyo iyo hay'adda ICAO intaba lugta way ku yeelan doonaan marka aan Muqdisho u soo wareego. shaqaalaheena tababar ayaa u socda tababaradaasi marka aan dhamaystirno oo aan yeelano shaqaalo Soomaaliyeed oo ku takhasusay keligood maamuli kara ayay gacan Soomaaliyeed wada gelaysaa. inta ka horeysa waxay noqon doontaa ICAO iyo shaqaale Soomaaliyeed shaqaale ajnabi shaqeeyaan iyo annaga oo supervision kala soo dowladda Soomaaliya oo supervision kala insha Allah taala maalinta aan diyaar ka nahayna boqolkiiba gacanta Soomaaliya ay soo wareegaya. ahmiyadda ugu weyn ee annaga aan hadda isna waxay tahay 27 sano kadib ayaa waxa laga wada maamulay wadanka gudihiisa marka wadanka gudihiisa in laga maamulo qaaraha ku baxaya wadanka dibadiisa wadanka gudihiisa ugu soo laabto halkaas maamulna supervisionka annaga yeelano oo annaga supervisorena ayaa ahmiyadda marka taasna hadda ay bilaabanaysaa. waa garta qofka marka Soomaaliya joogo ee laga yaabo inuu xataa barbaaray ama uu koray xilliyada dagaalada sokeeye wax badan aan ka aqoonin hawo inay dawlad maamulato ahmiyadda idinku jiri karta ee u sharaxi karto maxay tahay dawladda federaalka Soomaaliya inay hawada dib u hanato oo la soo wareegto maamulkeeda. sida adiga haddaan tusaale ahaan u soo qaadno waxa weeyaan xorriyadda wadan complete ma aha haddii hawada dushiisa diyaaradaha maraya ay maamulayaan ama laga maamulayo wadan shisheeye. marka waxay noqonaysaa annaga oo xorrimadeeda dib u helnay oo kale ayaa arrintan aad ka soo qaaday. waa gartay marka waxaad bal iga warantaa dhanka amniga markii la eego waxyaabaha waxay ugu jirtaa kaalinta ugu muhiimsan Soomaaliya sida loogu aamini karo amniga ayaa qayb ka ah in dawladda Soomaaliya damaanad qaadi karto. marka goobta amnigeeda iyo sida aad u sugaysaan wax ma nooga sheegi kartaa macnaha sida la socoto magaalada Muqdisho oo ah meesha laga maamuli doono hawada dawladda ka raali noqdo meesha
ugu amniga adag waa garoonka aadan cabdulla international marka aadan cabdulla international ayaa ilaahay ka raali noqdo laga maamuli doonaa halkaasi waxaa jooga ciidamo ajnabi ah iyo ciidamada dalka intaba amnigana meesha ugu amni badan ee wadanka hadda iyada oo marka la soo wareejinayo shaqaalaha meesha ay tegayaan meesha qalabka la rakibayo amniga hadda inta uu yahay laga kordhin doonaa haddii ilaahay ka raali noqdo marka amniga runtii wuu sugan yahay haddeer wuu sugan yahay marka lasoo wareegana wuu sii sugnaan doonaa oo waa sii kordhinaynaa haddii ilaahay ka raali noqdo haddii amniga uu qalqal ku jiro ama wax concern ah ay jiraan hay-adda ICAO marnaba nooma ogolaateen inaan meeshaas kusoo wareejino shaqaalaha meesha ay degaan waxyaabaha projectka markasta dib u dhigaya waxaa kamid ah amniga sidii loo sugi lahaa shaqaalaha meeshii la dejin lahaa ayay ahayd marka alxamdulilah iyagana way ku qanceen annagana waan ku qanacsanahay in amniga hadda sida ugu wanaagsan ee wadankeena meel ay ka jirta ay noqon doonta haddii ilaahay ka raali waa tahay maadaama dalka wasiir hanaan federaal uu galay haddana hawadu waxay ka mid tahay waxyaabaha habka qaranka ah sida aan dareemayo ama habka federaalka inay hoos imaanayso haddana ma jiri kartaa in maamul gaara sida Somaliland oo kaleeto in ayagana gooni loo maadaama arrintan ay muddo soo noqnoqonaysay guud ahaan hawada ma meel gaar oo Muqdisho un ahaa laga wada maamuli doonaa mise wax kala jiri doona hawada maamulkeeda waxaa laga maamuli doonaa Muqdisho garoomada qaarkii waxaa joogi doonaa shaqaalo badan garoomada kale waxaa joogi doona shaqaalo ayagana meelaha ka maamulo qaybaha qaarkood oo waxaan yeelan doonaa haddii ilaahay ka raali noqdo center Muqdisho oo kale center kale oo lamid ah oo wadanka gudihiisa isagana laga samayn doono arrintaasi weli waxaa ka jira la tashi badan ayaan ka sameynaynaa meesha laga sameyn lahaa haddii ilaahay ka raali waa hagaag dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa wasiirka duulistii hawada ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad waxaana uu waramayay wariyahayaga Saare Cabdi Axmed oo ku sugan Washington markale galab wanaagsan dhageystayaal xadka Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaanna dhanka degmooyinka Beled Xaawo iyo Mandera waxaa maalintii labaad ka taagan xiisad u dhaxaysa ciidamada ilaalada xuduudaha Kenya iyo shacabka magaalada Beled Xaawo arrinkaasi ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii darbiga ay Kenya ka dhisayso xadka labada dal u dhaxeeya uu soo gaaray qaybo kamid ah xaafadaha magaalada Beled Xaawo taasi oo keentay in dadka magaalada ay ka gadoodaan oo ay ka hortagaan dhowr askari ayaa dhagax tuurkii maanta ku dhaawacmay ciidamada Kenya rasaas ayay fureen shacabkii banaanbaxa dhigayay sidoo kale dhowr dumar ayaa la sheegay in dhaawacyo soo gaareen ilaa iyo hadda ma jirto wax dhimasho oo la sheegay sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal iyo maamulka degmada iyo gobolka Cismaan Nuux Xaaji oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gado ayaa wuxuu uga waramay sida wax u dhaceen wariyaheena Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo Washington jooga walaal aad baa umahadsan tahay saad ogtahay gobolka xadida dalka Soomaaliya iyo u dhaxaysay Kenya Beled Xaawo iyo Kenya u dhaxaysay waxaa soo galay nimanka la yiraahdo Kenyaatiga dawladda Kenya dhowr jeer baan la hadalnay barnaamijkaas aan kala hadalnay xuduudana waxay leedahay meel lagu kala gudoomo oo la garanayo nimankii way aqbali waayeen barnaamijkaas wafti madaxweynaha uu soo diray hadda koor way yimaadeen waa la kala cabiriyay halkay ayada ku ekaan jireen loo dhigay booyihii iyo qalabkii hadda marka waxay isku dayeen oo ay sameeyeen in magaalada Beled Xaawo barkeed ay jirtaan oo gudi ay soo galaan kuna socdaan ilaa saldhiga iyo laba masaajid oo weyn oo bartanka magaalada ku taallay dhul ka bilaabanay inay jirtaan waayay marka waxa weeyaan taa macnaheedu deerkii ay dhisaysay ama darbigii ay dawladda Kenya dhisaysay ayay gudii xadka Soomaaliya oo magaalada gudaheegii ay soo dhaxmariyeen ay soo gaarsiiyeen darbigii dhisayeen darbiga halka ay loogu tirgalo ayaga ay lahaayeen maysan marsanin bartanka Beled Xaawo ku soo aadiyeen bulshadii dhan oo Beled Xaawo degneed kala bar waxay martay dhanka la yiraahdo xuduudda Kenya xageeda mariyeen waayay bulshadii way ka marka qoryaheedii iyo ay qaadatay ilaa shalay maanta waa la soo taagan yahay waayay maxaa markaa iska horimaadkaasi sidoo u dhacay maxaa khasaare ka dhashay walaal baa umahadsan tahay hadii xuduudda Soomaaliya oo dhan ay waardiisanaysa cid gaar u leh ma jirta bulshadii way kacday markay cabirka Kenyaatiga qaateen oo
damceen in ay dhulkii jartaan waa la jibiyey dhagaxyo iyo waxa loo gurtay iyo muxuu ahaa qoryo dadka shacabka bulshada ay la baxeen annagana waa la hadalnay qolada mas'uuliyiinta Kenyaatiga ka joojiyaan ku niri barnaamijkaas maamulka degmada Balax Hoose inoo sheegeen way la hadleen Kenyaatiga ma aysan aqbalin barnaamijkaas isaga ah cabirkoodii iyo waxay iska qaateen muxuu ahaa cagafyadoodii dhagaxyo iyo tareega iyo muxuu ahaa qoryaal loola soo baxay shacabkii waana la isku riday haddana Kenyaatiga xagoodii ku laabteen wax wada hadal wali ma bilaaban waayay dabcan iska horimaad markuu dhaco Kenyana dabcan hawsheeda wadata halkana waa dad shacab ah waxa ka hawlgalaya amaba ka hortagaya inaba inta ogaalkaaga wax khasaara ah amaba halkaas ka dhashay walaal sida noo sheegay hadeer dhagaxyo qoryihi ay Kenyaatiga ridayeen ilaa iyo 4 gabdhood oo xaamilo ahayd oo hadda foolatay oo qaarkood ilma ay soo rideen waa la sheegayaa nin ay Kenyaatiga qori baadkii ku dhufteen oo hadda muxuu ahaa meesha ku dhacay oo asna dib u gaaray waa la sheegayaa sida hadda maamulkii iyo dadkii meesha joogay shacabka ay noo soo sheegeen khasaare 4 la sheegayaa qaf ayagana dhagaxyo iyo wax loo yareystay ma jiraan haddana xuduudoodii lagu guray oo hadda way soo dhaafilayeen hadii wax qadar waxay ku diray dhulka ay leeyihiin way soo galayeen laakiin inaysan leeyahay boob head ku cadeynaysa in xuduudoodii lagu celiyo la ciriyo way hadda marka waa istaagay oo waa noqdeen taa macnaheedu miya مساهوش واسعتها ما يشري ولا عريصدي أو واحد هذا قبتين ما يسنجرين أي شغل قبتان إذا معين بالشدي ولا أخوك حظي ذاك دينه ويسود دولين أو ما أنت حبضها بكذا حظي شل حبض كم دحين ما أنت حبضها كذا حظي نوا يستاجر مركز طين أو يستاجر معنا هذا ما لكن بقدرنا إلا سمين لا يهين إذا ما دي أنا جي قبل كجونين والله هذا الني حتى لو حنودي أصلا هدي له رأي النوغتين يدرس هذا يحد جذب يمحوها أي وده جوجين وإذا يزولين تلقنا هذا قبل كنا إذا ما دي دلك صومالي جوادن إن الحدود إلى سنة كورونا تجان هذي كين يفرقين تيروه كجوجين ويساعد وياي هذا إنه قصة كلا قدومي طبعا ده أرنك حد مركز لقى هذا هو أرن حساسية دي سلا طبعا عاديا بدأ الدنيا سين وكور قبل حدود ده وحما ملاين تبدأ دولة ده أمامك قبل كمركز لقى تروح دولة فدرال كوكله دولة فدرال كملا حريدان سمح سكوكتي دولة هذا فرين توان جارسيني وين كور قبتها إذا حد كنا دكور السوق السدي وفتي وصدرتنا وجري لكن كي يعني كل مرة فتا دولة ده مركز وعيدا وأنا هذا اللي وين إيماني سعدي له اللي كان نقضه لكن أنت يسون إيمانين بيخوان كياتين أي بوب يو محوها يعني تقاعد إنه يقص ميان ما نلاقيه إلى شعب إلى السنة يمشي يذهب دولة هذا سيد هذا بمقصوا شعب كانوا وتاعين ودول كيس إلى السنة وحنا لنا دولة ده سيد دق إنه يقصوا جرمة دول كاس أيضا إسكالة أيضا إلى لك شعب كان إلى لك هي دولة ده دول كله وين أي مركز سو جرمة دول كاس هذا دولة جبلات كجبلان الدولة ده حبا أي سيد دق نوقصوا جاران إن كياتي كاسنا أي حدود إليه كويس تيسيان إن دربيان هذا الحين تيسو إن مدة سعودي أو طبعا دولة كينيا كمان ويقبضن بويشاعي سنة درب ديسدونت إن قياسهان إنتو ليه هي إمكا إنت كوسو بيجنتي حد كاسي أما بين بلد حاوة باي مكادين وده كان إمكا مرة كتاعين هي إنتو قال كاجا إنتو ليه قياسهان هذا ما سنتاي دول يرماهن هذا يربطنا يكين قاعدته وبرتين كي بورحاوي كربريه بورحاوي دبد مركي laga soo jira labada masaajid lagu soo aadiya dhankan buurta laga rida xaduudaasi marka waa karabarihii buuraha waa xagga maraya marka cid yeelaysana ma jirto waa lagu dhamaan waana lagu diriray Kenya waxaan leenahay xadgudubka ay ku wada dawladda Soomaaliya ha ka joojiso dalkani dawlad baa iskale dawladana way ilaashanaysaa dawlad kuma xadgudbi karta shacabka amarkan siinay anaga ka gobol ahaan waa in ay ku diraan xadkoodii ama ay iska dhacayaan cadawga ku soo duulaya dawladda Soomaaliya waxaa la fargelin aad iyo aad saayid ha ku soo sameeyay halkaas dhulka ayada iska leh ilaalsata ay maadad degdeg ah soo dirtay way laakiin suurtagal ahaan ma dhacaysaa in shacbigu ay xad ilaalin karayaan marka laga yimaado hadaan ciidan haysan amaana dawladda Bariitaaniyeen anaga hadda kula hadlaynaa ciidan ah barasa ku aanka gobolka hadda kula hadlayo waa askari difaac hore oo garbaariyan ku jira haddii dhulkaas ay Kenya ku soo xadgudubtaan anaga ka baxeen difaacyada meeshan shabaab la dirayna ayaan la dirayna kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo Mudane Cismaan Nuux Xaaji oo isagu u waramayay wariyaheena Cabdixakiim Maxamuud Shirwac Gordhaweyto galab wanaagsan baana markale dhageystayaal idin halkan weli ka wada socdaa naga maqlaystaan waa VOA ka imanaysa Washington haatan Muqdisho maamulka gobolka Banaadir ayaa safar dibadda u qaaday Faaiise Maxamed Cabdi oo gabadh 12 jir ah oo magaalada Boosaaso ee Puntland kufsi loogu geystay muddo bil ka hor gabadhan ayaa xaaladeeda caafimaad wax looga qaban waayay gudaha dalka dhaawac xabad ah oo kaga yaala xubinta taranka awgeed
shir jaraa'id oo ay wada qabteen maamulka gobolka banaadir iyo weliba waalidkeeda ka hor inta aanay u bixin amaba aanay ka bixin garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada muqdisho waxaa ka qayb galay shirkaasi jaraa'id islamarkaana warbixintan nooga soo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste maamulka gobolka banaadir ayaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ku sii sagootiyey Faa'iise Maxamed Cabdi oo ah gabar 16 jir oo bilowgii bishii November ee sanadkan lagu kubsaday magaalada Boosaaso isla markaana rasaas looga dhuftay xubinteeda taranka gudoomiyaha gobolka banaadir Kaadid Cabdi Maxamed oo saxaafadda kula hadlay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa sheegay inay dadaal badan u soo mareen sidii Faa'iise ay ku heli lahayd caafimaad dibadda ah isagoo sheegay in ugu dambeyn maanta loo qaadayo magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxaana uu rajeeyay in caafimaad taama uu eebasiiyo saakay waxa ilaahay mahadiisa aan nimid garoonka caalamiga ee aadan cadde international airport magaalada muqdisho Soomaaliya aan maanta oo sabti ay tahay taariikhda 23 December ayaan halkan nimid anagoo sugootinayno una duceynayno caafimaadna insha Allah safar caafimaad oo kuleh u rajeynayno walaasheen Faa'iise Maxamed Cabdi oo runtii xaalad aad u adag ku sugnay oo 16 sano kaliya jirta laakiin waxaan aaminsanahay marka la isgarab galo loona duceeyo la isku dadaalo inuu ilaahay caafimaad soo siin doono insha Allah safarkeedan uu noqon doono safar caafimaad oo guul leh Faa'iise xaaladeeda iyo armeeda caafimaad waxa lagu koobi karo ma aha laakiin ilaahay waxa uga baryaa inuu ilaahay caafimaad soo siiyo kuna soo guuleeyo waxa uu mahadcelinaa qof walba ka qayb qaadatay min ilaa meesha dhibku ku soo gaaray ilaa inta istaal ku jirtay ma ahayn inta qaad qof Soomaali oo damiir leh anaga markii la soo gaarsiyo waxaan qaban karnaa waa ku dadaalnay gudoomiyaha gobolka ayaa dhinaca kale sheegay in haddii ay yihiin maamulka gobolka banaadir ay ka soo baxeen kaalintii kaga aadaneyd hawshan waxaana uu shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ka codsaday inay Faa'iise wehel u noqdaan kuna soo dhaweeyaan magaalada Istanbul maadaama xaaladeedu ay aad u adag tahay aan mar kale dadka codsanay dadka jooga gaar ahaan dalka Turkiga magaalada Istanbul Soomaalida joogta inaad u istaagtaan gabadhaas sidaad wehel ugu noqon lahayd ummadda kale Soomaaliyeed kasta ay joogaan waxaan ka codsanayaa gabadhan xaaladeeda xaalad sahlan ma aha anagu wixii waajib waa qabanay waana garab istaagayna waana hubinayna insha Allah intuu ilaahay caafimaad ka soo siin doono ayadoo faraxsan caafimaad qabtan ilaahay waxaan ka been inuu nabad lagu soo celiyo laakiin waxaan ka codsanaa ummadda Soomaaliyeed kasta ay joogtaan walaalayaal aan isgarab istaagno ugu dambeyntii Maxamed Cabdi oo ah aabaha dhalay Faa'iise oo ah gabadha dhibanaha ah ayaa maamulka gobolka banaadir uga mahad celiyay hawshan ay qabteen iyo sida ay gacan uga siiyeen gabadhiisa in markii ugu horeysay maanta loo qaado dalka Turkiga gudoomiye Thabit iyo agaasimahiisa iyo dhammaan dadkii hawsha Faa'iise ka qayb qaatay dal iyo dibad aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa mahadaan la soo koobi karin ayaan u mahad celinayaa gabadha Faa'iise Maxamed Cabdi dadka ka qayb qaatay hawlaheeda gudoomiye Thabit gudoomiye Maxamed Ismaaciil iyo dhammaan maamulka gobolka banaadir waxaan u rajaynayaa guul waarta ayaan u rajaynayaa waana uga mahad celinayaa arrinta gudoomiyaasha dhammaan way mahadsan yihiin Faa'iise Maxamed Cabdi oo ah gabar 16 jir ayaa sida la sheegay horaantii bishii November ee sanadkan kubsi loogu geystay magaalada Boosaaso sidoo kalena waxa rasaas lagala beegsaday xubinteeda taranka waxaana in muddo ay ku jirtay isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho kaasoo xaaladeeda caafimaad waxba looga qaban waayay waxaana nasiib wanaag maanta lagu guuleystay in markii ugu horeysay maamulka gobolka banaadir oo u diro dalka Turkiga si halkaasi loogu soo daweeyo xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho mahadsanid xasan kaafi markana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waa kan Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinaya kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka dhacdooyinka ugu waaweynaa toddobaadkan waxaa ka mid ahaa kulan tala wadaag ah oo loogu talagalay aqoon-yahanka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda dalalka ku yaala geeska Afrika ee ay Soomaalidu degto oo lagu qabtay Jamhuuriyadda Djibouti kulankan oo ay soo qaban qaabisay xarunta daraasaadka Heritage ayaa waxaa soo xidhay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo ka waramay ahamiyadda kulankan oo kale waxaan aad ugu faraxsanahay in aan dad aqoon-yahan iyo mas'uuliyiin iyo ganacsato iyo ganacsatada wajaal waaweyn waxaan sheegay ma ahan ganacsigii yaraa maaha rag waaweyn waxaan sheegay hadashani Heritage ay isugu timaadeen
aad baan idiin soo dhaweynayna heritage-na warkeeda waan maqalnay 5 sano iyaan soo gardaadinaynay baa tiri oo haddeetool waa sala joogsatay annagu wixii aan ka tari karno waan isku dayaynaa inaan ka tari karno mas-uuliyadda weynisadee ragga culimmada ee halkaa isugu yimid ku bahoobay in ay waddanka waktigooda iyo maskaxdooda iyo aqoontooda iyo khibradooda intaba ay isugu geeyaan hagarliina ay uga qayb galaan dhismihiisa horumarkiisa iyo waxa ay ummaddu ka sugayso kolka la doodo aan wada hadalno waan heshiina bay soomaaliyeed markaa dee ummadda soomaaliyeed way u baahan tahay dadkaas oo dhan maantana subjectu wuxuu ahaa soomaaligu maqaamkiisu halkeebu gobolka ka jooga sooma dadka uu la nool yahay noocay doonaan ha ahaadaane in uu meesha uu joogo kenya ha joogo ethiopia ha joogo jabuuti ha joogo soomaaliya ha joogo somaliland ha joogo in uu ku kordhiyo adduunkani maskaxdiisa iyo aqoontiisa ummadda uu la nool yahayna inuu kula noolaado xubbi iyo sharaf waxa aan dee isleenahay jabuuti marka aynu joogno aqoon-yahanka doorkiisa inaan adeegsanay mar hore oo xabta aan joogi jirnay oo aan mar kasti oo loo baahdo in la furdaamiyo soomaalida dhibaatadeeda in la furdaamiyaba dadkii la adeegsanayay dadkiina wey idinka ayaa ahaa dadkii ka tala bixin wixii alla qorana uu dhahaa maanta diasporaa waxa la yidhahda ayaa jira oo ayaguna dhibta geysay dhulkaasi kasokow jiil cusub oo waxbartay oo aqoon iyo xirfad iyo khibrad intaba kusoo kordhinaya ummadda soomaalida weeyaan agaasimaha xarunta daraasaadka heritage cabdirashiid khaliif xaashi ayaa isaguna v o eda uga warramay kulankaas ujeedada kulankan wuxuu ahaa horta waa kulan qayb ka ah shaqada aan doornay inaan qabanno macadka heritage ahaan 3 ilaa 4 shaqaan qabanaa midda ugu horeysa waxa weeye inaan daraaso cilmi baaris sameeyno oo waqti dheer nagu qaadato 6 bilood 7 bilood 8 bilood qaadato aan mawduuc doorno waxbarashadan ka doornay abaarahan ka doornay qaxootigan ka doornay amnigan ka doornay kuwa ka kooban cilmi baaris ka kooban waa sameeynaa oo markii 2 bilood mar wixii markaas taagan aan tooshka ama diyaarada ku saarno waxaan kala qabanaa kulamo aan u bixinay forum for ideas ama madasha aragti wadaagga Soomaalida muqdisho xarunno ah muqdisho ku sameeyna inta badan waxaan go'aansanay sida marka aragna faa'iido anaga ay noo leedahay oo xogta iyo aqriga aan aruurinayno iyo mid ay dadka u leedahay ee dalabka ka imaanaya inaan sameeyno mid sanadla ah madal aragti isweydaarsi iyo afkaar wadaag Soomaaliyeed oo sanadla kuwa kale oo adduunka dhaca jira oo waxaan ugu dhaliyay World Economic Forum baa jira Aspen Ideas waa idhaan baa jira oo maqaawiirta iyo inta talada leh iyo inta wuxuu iyo inta maaragtay aragti haysa ee sanadkii markuu kulmaan wax badan ay ka hadlaan marka waxaan sameeyay Soomaalidu jamhuuriyadda Soomaaliya waa degan tahay Kenya degan yihiin Ethiopia degan yihiin qurbaha degan yihiin Djibouti degan yihiin maamul goboleedyada jira Soomaaliland ba gooni isku istaagtay dadka Soomaaliyeed markasta buuqa xawar ka jira waa laga sheekeeyaa laakiin sidanaha waaweyn oo noo yeelo qarniga soo socda ama kontanka soo socda sida qaaradan aan ugu noolaanay gobolkan in wax la iska yiraahdo la isku yimaado aqliga la toojiyo wararka kale toddobaadkan waxaa ka mid ah dhageystayaal dawladda Soomaaliya oo wada qorshaha sugidda amniga caasimadda talaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ciyaarihii maamul goboleedyada oo ay kumanaan kun oo daawadayaal ka qayb qaateen kuwaasi oo nabadgelyo ku soo dhamaaday haddaba xaaladda guud ee amniga caasimadda Muqdisho waxa ka waramaya afhayeenka gobolka Banaadir Cabdi Fataax Xalane aad iyo aad baad u mahadsan tahay howlaha amniga magaaladan 4 sano afhayeenka gobolka Banaadir ahay waxa weeye waxaan aaminsanahay inay tahay markii ay ugu wanaagsanayd waayo shacab iyo dawlad iyo maamul iyo degmo isku xiran iyo ciidan amni
talada ka qaata guddoonka gobolka Banaadir ayuunbaa hadda shaqeeya aad bayna u fiican tahay xaaladda amniga ee caasimadu in ka badan 30,000 oo qofood baa garoonka yimid oo lugtooda ku yimid oo ciidu cazumin oo ciidu kaalay ciyaarta daawada dhihin magaaladiina dhex mushaaxayeen oo iimanayeen oo daawanayeen ifafaala amni bayna tusaysaa iyo horumar ay caasimadu ku socoto dhanka ammaanka gudoomiye Taabid Cabdi Maxamed